sheeko xariir. Beri baa nin safar ah u soo hoyday reer meel baadiye ah degan. Reerkii ayaa sidii dhaqanka wanaagsan ee suuban ee Soomaalidii hore ahaa u sameeyay ninkii martisoor. Ninkii waxaa loo keenay gogol oo ku nasto, markuu seexanayana oo ku seexdo. Reerkii ayaa si ninkii safarka ah u sawraan ka soo soocay xoolihii ay dhaqanayeen neef dhayla ah oo buuran. Hilibkii neefka oo dhan ayaa reerkii si fiican u karsheen, dabadeedna u keeneen ninkii martida ahaa. Waxaa kaloo loo keenay caano badan oo dambar leh oo markaa la soo lisay. Markii cuntadii loo keenay ayaa ninkii martida loo ahaa wuxuu doonay farxal. Intuu farxalka ku maqnaa ayuu ninkii martida ahaa cunay wixii hilib iyo soor ahaa, oo kadibna caanihii isaga dajiyay. Markuu ninkii martida loo ahaa farxalkii keenay ayuu arkay raashinkii oo eber ah. Sidii dhaqanka iyo caadada u ahayd Soomaalida, waxba ma uusan oran ee ninkii wuu iska aamusay. Ninkii martida loo ahaa intuu fadhiistay ayuu weydiiyay ninka safarka ahaa meesha uu u socdo. Ninkii safarka ahaa ayaa yidhi, waxaan u socdaa magaalada oo waxaan rabaa inaan dhakhtar u tago. Ninkii martida loo ahaa ayaa yidhi, miyaad xanuunsan tahay? Ninkii safarka ahaa ayaa ku warceliyay oo yidhi, waxaa iga xiran cuntada oo daawaan doonayaa. Ninkii baa intuu yaabay wuxuu ku yidhi ninka martida ahaa oo safarka u socday, waxaan kaa codsanayaa markii cuntada lagu soo furo aadan isoo marin. Ninkii martida loo ahaa wuxuu is yidhi, ninkan neefka iyo soortii cunay, caanihii aad ogeedna cabay, markii raashinka loo soo furo talow muxuu cuni doonaa? هوشار مشروع